السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأمانتين أدبانين سلامي إنتينا ما أنت عشر كنا بلعبين عن قصة رسول كان يسوع صلى الله عليه وسلم. So today we have a very interesting lesson. عشر أدو حسب بدن منه ما أنت إن شاء الله قانتونا words with different meanings. كلمة ذو اسكو لواق اسكو قرال اسكو أخرس هذا نوع حيليين معناه كلا دوان. So like today we're gonna prove that English is easy. Okay, maanta waxaanu cadayn doonaa in luqadda Englishku fududahay. Ka 8 kelmadood mid waliba waxay leedahay laba macno wax ka badan ama laba macne. Okay, so waxay ka dhigan tahay 8 kelmadood xifdido aad awood u yeelato inaad isticmaasho inaad tahay qof xifdiyay almost like 16 kelmadood. Kas kelmad waliba waxay leedahay macne aan kan ahayn ee mid kala ah. Okay, let's start. First word waxa weeyaan date. Date have 3 meanings ardayo. Kelmadda date waxay leedahay 3 macno. Macnaha koobaad wan wala naqaan inta badan buugaagteena xagga sare ugu qornaan jirtay barigan wax dhigan jirnay cidii soo agagaadhay. Date waxa weeyaan taariikhda, waqtiga ay kaga hadashaa. Okay? Second, timirta. Timirta date baa la yiraahdaa. As well markaad mawcid u baxayso ama qof dibadda wala aadaysaan ballan oo kale date by isagaan la yiraahdaa. So it have 3 meanings kelmadda date. Okay? Let's move to the next one. Fly. The word fly. Fly have 2 meanings. Duqsiga iyo duulid. Imika diyaaraddu way duusho kale. You're going to use the word fly. Okay, have 2 meanings. The third one, kelmadda saddexaad. Well. Well have 2 meanings. Mid waad ogtahay way fududahay way wanaagsan waa fiican. Laakiin ta kale waxaa oran karaa dadka inta badan ma yaqaanaan ceelka biyaha laga soo dhurto laga soo qaato well baa isagan la dhahdaa inay kelmadaasi kugu cusubtaan filaya meel ku qoro insha Allah. Okay, let's move to the I think it's 4, I guess, yeah, it's 4. Watch. Watch have 2 meanings. Watch, saacad. This one called watch, saacad. As well, daawasho. You are watching me now through TikTok, Instagram, maybe Facebook. So what daawanaysaa imika daawasho iyo saacad labaduba waxaad u isticmaalaysaa the word watch. Okay, tie. Let's move to the 5th one. Tie. Tie have 2 meanings. Miduu fudud yahay tie. How to tie a tie. How to tie a tie. I love that word. Sebaad u xidhan kartaa tie. Tie waa nigtayga. Soomaaliyeed bedel. Macna kale ayay leedahay waxa weeyaan ciriiri. When you hug someone, okay, you give someone a hug, qof baad habsiisa ama laabta gelisay, you hug him so tight. Xoog baad ciriiri baad laabta u gelisay. Tie, ciriiri. Okay, let's move to the next one. Left. What is the meaning of left? Most of you know the meaning of left. It's very simple. Left waa bidix. Right? Bidix. Take left. Take right. Left waa bidix. Macna kala yeelataa. Left waa ka tegid. He left me alone. Keligii buu iga tegay. She left him alone. Keligii ayay ka tagtay. Left waa ka tagay. Okay? Let's move to the next one. Waa isku dhow yihiin labadani. Right iyo left. Right. Macnaad waa garanaysaan baa jira oo saxa. This is right. He's right. Uu saxan yahay. He's right. He's telling the truth. Right. Sax. Okay? Ta kalena way iska caddahay waa midig. Take right. Take right. Dhanka midig u leexo. Take right. Okay? The last one. The last one mid baan idiin sheegaya. Okay? Ta kale waxaan doonayaa insha Allah comments inaad noogu soo sheegtaan macnaheega. Ring. Fargalka. Ring baa la dhahdaa. So the word ring have another meaning. Dad baa dhawaad heli karaysaa haddaad already garanaysana way fiican tahay insha Allah comments ka noogu reeb the meaning of ring kelmad kale oo sidana u qormata sidana loogu dhawaaqo laakiin macno kale leh oon fargal ahayn. Aad baad u mahadsantahay. Thanks for watching insha Allah. Subscribe, follow the page, and thank you. I wish you have an amazing day.